madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waraqiisa aqoonsiga ee safiirnimo waxa uu si rasmi ah maanta ugu gudoomay safiirka dawladda Switzerland ay soo magacawday Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii danjiraha uu ka gudoomay waraqiisa aqoonsiga la yeeshay kulan muddo dheer socday oo ay uga wada hadleen xiriirka labada dawladood iyo doorka dawladda Switzerland ay ka qaadanayso caawimaadda Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay dawladda Switzerland sida ay uga go'an tahay garab istaagga Soomaaliya. kulankaasi kadib ayaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isagoo kulanka iyo waraaqaha aqoonsiga ee laga gudoomay safiirka dawladda Switzerland ee Soomaaliya iyo dalka Kenya u fadhiya goobjoog ka ahaa mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waxa uu la hadlay warfadiyeenada waxa uuna sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalay waraaqihii safiirka dawladda Switzerland ay u soo dirtay dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. dhanka kale waxa uu sheegay in dawladda Switzerland ay diyaar u tahay bixinta lacag badan oo ay ku tala gashay in wax looga qabto arrimaha gargaarka Soomaaliya. waxa aan halkan isugu nimay in aan soo dhaweyno ambassadorka cusub ee Switzerland oo dalkiisa matali doona dalkiisa u joogi doona wadankeena Soomaaliya isagoo isku qaabilsanaan doona Soomaaliya iyo Kenya. dalka Switzerland wuxuu ka mid yahay dalalka faraha badan leh ee maanta u soo jeeda in Soomaaliya la caawiyo caawimooyin fara badan bay dalkeena siiyaan. caawimooyinka waxa ka mid ah mid ay kaga qayb galayaan mashaariicda faraha badan leh ee la wado haatan ku wajahan abaaraha iyo sidii loo soo dabajari lahaa oo ay $5 milyan ku darsadeen. waxyaalo kale oo fara badan oo caawimada dawladda ay imika way keenayaan way soo wadaan. marka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka aqbalay waraaqii aqoonsiga. markaas sidaa daraadeed waxa ay suuragal u noqon doontaa inay halkan joogaan oo ay waxna la qabtaan oo ay wadanka gudihiisa ku jiraan. waxaan filaynaa wax yar kadib inay soo wareegi doonaan ayaan filaynaa. sidoo kale safiirka cusub ee dawladda Switzerland u qaabilsan wadamada Soomaaliya iyo Kenya Ambassador Dominic ayaa sheegay in diyaar ay u tahay dawladda Switzerland in Soomaaliya ay ka caawiso gargaarka bini'aadanimo iyo sidoo kale dhisidda maamulada federaalka maadaama dawladda Switzerland ay khibrad weyn u leedahay arrimaha federaaleynta. Switzerland has been helping the Somali people through all the years of crisis and will continue to do so where the need is. At the same time, we will be working. safiirka dawladda Switzerland ayaa yiri annaga waxaan diyaar u nahay in aan dadka Soomaaliyeed taageerno oo aan bixino caawimaad dhinacyo badan taabanaysa. caawimaadena waxay u badnaan doontaa mar walba in aan ku saleyno arrimaha bini'aadanimada taasi oo dalka Soomaaliya si weyn looga baahan yahay. sidoo kale waxaan diyaar u nahay in dawladda Switzerland ay si toos ah ula shaqeyso dalka Soomaaliya. waxaan hubaa in aan khibrad weyn u leenahay arrimaha federaaleynta oo hadda dalka Soomaaliya uu doonayo in marxaladaasi uu u gudbo. taasi waa mid kale oo dawladda Switzerland ay uga faa'iideyn doonto dalka Soomaaliya. wada shaqeynteena iyo caawimaadeenana waxay ahaan doontaa mid ku dhisan saaxiibtinimo. If at any point Somalia would want to draw on Switzerland for advice, experience in federalism, we are here to do so. And we have agreed that this would be an area in which we will develop our cooperation. danjiraha cusub ee dalka Switzerland ayaa waxa uu ka mid noqonayaa safiirada dawladaha caalamka ee ka howlgalaya Soomaaliya taasi oo sii xoojinaysa xiriirka adduunka iyo dalka Soomaaliya ka dhaxeeya iyadoo laga faa'iideysanayo taageerada dhaqaale iyo siyaasadeed ee wadamadaasi Soomaaliya ay ku caawinayaan. Faisal Musa Maxamed, SNTV, Muqdisho.